السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay maxamed xirsi ku soo dhawaada Higgs Technology. maanta haddii alla idmo waxaan qaadan doonaa waa ka jawaabaynaa su'aal la soo weydiiyay. su'aashaas waxay tahay sida tuulisha loo furo kuwa gudaha ku jira. tuulishan mid kasta oo kamid ah wuxuu qabaa tuulal gudaha ku jira. kama soo qaad shape-kan inta rectangle ayaa u jeedaa marka aad gudaha sii gashidna wuxuu leeyahay ilaa iyo 6 shape. mid ka kan oo text ah marka gudaha u gashid wuxuu leeyahay ilaa iyo 5 shape. halkan oo ah paint tool marka gudaha u gashid waxay leedahay ilaa iyo 4 qayb. haddaba maanta waxaan qaadanaynaa oo idin sharxiyaa sida loo furo kuwan. marka ku soo dhawaada Higgs Technology. sida aan sheegay maanta waxaan sharaxaynaa sida tuulishan gudaha looga furo oo gudaha kuwa ku jira loo helo. si aad u heshid waxaad sameynaysaa marka imaatid oo tool kor imaatid click hadaa ku siisid ama double click ku siisid ama right click ku siisid midnimo ma soo baxayaan. laakiin haddii aad click ku siisid acabar haysid way soo baxayaan. marka ku dhuftid oo acabar haysid sidaan ay u soo baxayaan kadib mid ka rabtid ayaa dooranaysaa. sidaas ayaa loo soo bixiyaa tuulisha gudaha ku jira ee Adobe Illustrator. ku soo dhawaada subscribe na hilmaamina cashka daakayshina like